waxaa gigida garoonka diyaaradaha ee Garaadwiil Waal ka soo degay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Itoobiya iyadoo uu ku wehelinayay gudoomiyaha guddiga tartamada federeeshinka ee Itoobiya iyadoo halkaasna ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta komishinka ciyaaraha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya falada warkaasi iyo wariye Faarax Badan aan u taloono waxaa gegida diyaaradaha ee Garaadwiil Waal International Airport ka soo degay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Itoobiya mudane Jonathan Basha iyo gudoomiyaha guddiga tartamada federeeshinka Itoobiya mudane Ababe Galagay waxaana soo dhaweeyay mas'uuliyiinta komishinka ciyaaraha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Bilax Xasan maayarka maamulka magaalada Jigjiga mudane Axmed Maxamed komishinka xigeenka ciyaaraha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Ibrahim Axmed Cabdi madaxa xiriirka kubadda cagta deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdirasaaq Xasan iyo maarayaha shirkadaha yaryar ee maamulka magaalada Jigjiga mudane Farxaan Maxamed Maxamuud waxaana markaa madaxweynuhu ka soo degay diyaaradda loo soo gudbiyay qolka nasashada halkaas oo warbaahinta uga warramay sida uu ugu faraxsan yahay imaatinka u yimid magaalada Jigjiga ee uu kaga qayb qaadanaya ciyaaraha horyaalnimada haddaba madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee dalka ayaa furi doona tartanka ciyaaraha horyaalnimada ee deegaamada dalka oo ay martigelisay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana si rasmi ah uga bilaami doona magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida Itoobiya